السلام عليكم أصحابتك وحنا جنالك مركز السود دوادا وأربعة قميص سوقلي سو لبض بيشة dadka qaar saddexda bisha ayay u tahay muuqaalkan waxaan rabaa inaan idin kula wadaago Donald Trump canshuurtii la filayay inuu ku soo rogo wadamada Mareykanka ganacsiga uu kala dhaxeeyo oo muddooyinkan uu ku hanjabayay ayaa si rasmi ah ugu dhawaaqay roobada ay hadii aad gugac maqashaan joogtaad maqashaan wax kale ha u maleynina marka xaflad ayuu ku qabtay aqalka cad golahiisa wasiirada ay inta badan ay ka soo qayb galeen waxana uu ku dhawaaqay canshuurtan taarifka horta taarifka canshuurteedu waxa ay tahay waxyaabaha wadamada kale ay Mareykanka u soo doofiyaan ayaa Mareykanku uu canshuuraya canshuurtaasi marka waxa bixinaya shirkadaha alaabtaasi soo iibsanaya markaas kadib shirkadahaasi markay alaabta soo iibsadaan oo iyagu canshuurta ay siiyaan wadamadaasi markaas kadib ayaa hadana dadka ama shirkadaha soo iibsaday dadka ayay lacagtii ku kordhinayaan marka dadka Mareykanka ayaa dareemaya wax kasta oo aad iibsanayso waa dareemaysaa maadaama lacagta taarifka micnaheedu sidaas ay u shaqeysaa marka Trump waxa uu leeyahay arintan waan ogahay inay culays keenayso laakiin shaqooyin fara badan Mareykanka waa ay abuuraysaa dhaqaalaha Mareykankana wax weyn ay ka bedelaysaa laakiin dhaqaalayahanadu waxay leeyihiin arintan burbur dhaqaale inay Mareykanka ku keento ayaa laga cabsi qaba xitaa suuqyada saamiyada isla maantaba hoos u dhac weyn ay ku xirmeen markii Trump uu ku dhawaaqay Trump maanta waxa uu yiri waa maalinta xorriyadda waa liberation day marka reciprocal tariff-ta waxay tahay wadan kasta inta canshuur ah oo annaga uu naga qaado ayaan iyagana ka qaadayna wali uu yiri naxariis ayaan u muujinayaa oo sida uu ugu dhawaaqay Trump wareegta uu saxiixay oo dhaqan galaysa caawa saqda dhexe hadda maalmihii u dambeeyay dadka Mareykanka oo baabuurta meelaha lagu iibiyo aad ay u iibsanayeen sababtu maxay tahay 25% ayuu ku soo ragay baabuurta dibadda wadanka dibadiisa ka imaanaysa oo waxa uu yiri arintaasi micnaheedu waxa ay tahay in baabuurta xitaa baartiska alaabta baabuurtaasi haday xitaa wadanka dibadiisa ay ka imaanayso iyo gaarigaba haduu ka imaanayo 25% taarif ayuu ku soo ragay arintaasi micnaheedu waxa tahay waxaan doonayaa dadku baabuurta Mareykanka in lagu sameeyo baabuurta Mareykankana ay iibsadaan marka Trump maalmahanba waa uu ku hanjabayay arintan horey waa kii wadamada Canada Mexico iyo Shiinaha oo saddexda wadan ee xiriirka dhaqaale ee ugu dhaxeeya ganacsi uu kala dhaxeeyo Mareykanka oo horey canshuurahaas ugu soo rogay haddana wadamo dhowr ah ayuu ku dhawaaqay marka Mareykanku inta uu canshuuro wadamadaasi iyo inta Trump hadda uu canshuuri doono ayaa shax intuu boor weyn ku soo qorto Trump goobta keenay sida aad arkaysaan marka wadamadaasi haddaan idin dul maro Trump uu ku soo rogay canshuurahan aad ay u fara badan yihiin marka hore hadii aan ku bilaabo Shiinaha Mareykanka waxay canshuuraan marka Mareykanku alaab intuu Mareykanka dadka shirkaduhu ay ka qaadaan ay Shiinaha geynayaan 67% ayay canshuuraan laakiin hadda waxa uu yiri inagu waxaan ku soo rogaynaa 34% marka hadda xoogaa u naxariisana uu yiri intii ay nagu soo rogeen halfkeed ayaan ku soo rogaynaa waxa kamida wadamada midowga Yurub oo kale European Union ka wadamo ilaa iyo dhowr iyo 20 wadan waaye san filayo hadiiba aysan ka badnayn 39% ayay canshuuraan uu yiri alaabta inagu aan geeyno anaguna waxaan canshuuri doonaa 20% waa wadamada midowga Yurub Vietnam wadankaas waxa uu yiri 90% ayuu canshuuraa alaabta aan geeyno laakiin inagu waxaan uga dhignay 46% marka sida muuqato waa run wuxuu anaga waana la ka faa'iideysanayay sanadahan dhanba wuxuu yiri Mareykanka waa laga faa'iideysanayay marka maxaa diidaya marka wadamadaasi anaga way naga faa'iideysanayaan anaguna inaan ka faa'iideysano oo inta alaabtooda ay noo soo dhoofiyaan inta ay nagu canshuuraan in lamid hadda fiiri Vietnam oo kale 90% ay alaabta Mareykanka laga qaado Vietnam la geeyo canshuuraan laakiin wuxuu yiri anaga 46% ayaan ka qaadaynaa waa kala bar waxa soo xiga Taiwan waxa uu yiri sidoo kale 64% ayay canshuuraan alaabta inagu aan geeyno alaabta ay noo keenaan hadda waxaan canshuuri doonaa 32% Japan oo kale Japan waxa uu yiri 46% ayay canshuuraan alaabta Mareykanka laga qaado halkaas la geeyo inaguna waxa uu yiri waxaan canshuuri doonaa 24% Hindiya 52% ayay canshuuraan uu yiri alaabta halkan laga qaado oo hal India la geeyo marka inaguna waxaan canshuuri doonaa 26% sidoo kalena South Korea 50% ayay canshuuraan laakiin waxa uu anaga 25% ayaan canshuuri doonaa marka hadii si loo fiiriyo
Trump inuu saxan yahay ayuu muuqataa maxaa yeelay wadamadan alaabta Mareykanka laga qaado lacag fara badan ay ku canshuuraan marka iyagana maxaa diidaya alaabaha Mareykanka ay keenayaan in intaasi in lamid ama in u dhow la canshuuro marka haddii si loo fiiriyo Trump wuxuu yiri waa nala ka faa'iideysanayay waana runtiis laakiin arintan intii hal mar uu dhaqan gali lahaa waxa dhaqaalayahanadu ay leeyihiin waxa fiicnad in wadamada uu kala qaybiyo oo kuwaba qaar uu ku soo roo laakiin Trump wuxuu yiri hal mar ayaan arintan dhaqan galinaynaa labada bisha wasaqda dhexe ayay dhaqan galaysaa sidaas qaarkoodna shanta bisha ayay dhaqan gali doonaan marka sidaas ayuu Trump yiri wadanka Thailand oo kale waxa yiri 72% ayay canshuuraan inaguna 36% ayaan canshuurayna wadanka Switzerland oo kale 61% ayay canshuuraan alaabta anaguna halkaas wadanka Switzerland geeyno laakiin hadda inagu waxaan canshuuri doonaa 31% wadanka Indonesia 64% ayay canshuuraan inaguna 32% ayaan taarifta lacagtaasi ka qaadi doonaa wadanka Malaysia waxa yiri 47% ayay lacagtaasi taarifka ay naga qaadaan laakiin 24% ayaan inaguna ka qaadi doonaa sidoo kalena wadanka Cambodia wadamada ugu badan ayuu ku jiraa wuxuu ka sii daran yahay Vietnam 97% ayay canshuuraan ayuu yiri marka anaguna 49% ayaan canshuurayna sidoo kale wadanka Ingiriiska wuxuu yiri 10% ayuu canshuuraa inaguna 10% ayaan canshuurayna marka waa sidaasi waa in isla ekaato waa bahasha ayuu leeyahay ninkan Trump marka 10% ayaan uga dhignay wadanka Ingiriiska sidoo kale waxa soo raaca wadanka South Africa 60% ayay canshuuraan oo naxariisanay 30% ayaan canshuurayna ayuu yiri wadanka Brazil ayaa soo raaca Brazil 10% ayay canshuuraan wuxuu yiri anaguna 10% ayaan canshuurayna halkii ay noo joogeen uma dhaafayno sidoo kale wadanka Bangladesh wuxuu yiri 74% ayay canshuuraan inaguna waxaan canshuurayna yiri 37% wadanka Singapore sidoo kale 10% ayay taarif naga qaadaan inaguna 10% ayaan taarif ka qaadayna waxa sidoo kale soo raaca Israel wuxuu yiri 33% ayay taarif canshuur naga qaadaa marka anaguna 17% ayaan ka qaadayna sidoo kalena Philippines 34% ayay taarif nagu sameeyaan anaguna 17% ayaan ka qaadayna wadanka Chile iyo Australia waa isla mid labadaasi wadan min 10% ayay Mareykanka canshuuraan Mareykankuna wuxuu yiri anaguna 10% uma dhaafayno Australia waan sheegay Pakistan oo kale 58% ayay canshuuraan ayuu yiri sidaas darteed inaguna uma dhaafayna 58 maadaama ay Pakistan canshuurto 29% ayaan inaguna sidoo kale aan canshuurayna waxa soo raaca sidoo kale wadanka Turkiga 10% ayay canshuuraan inaguna 10% ayaan canshuurayna halkaas uma dhaafayna ayuu yiri marka ninkii Trump ahaa sidaasi ayuu leeyahay canshuuraha wuxuu leeyahay in wadan kastaba inta uu inagana canshuuro ayaan canshuuri doonaa oo halkaasi uma dhaafi doono waa arinta Trump uu ku dhawaaqay sidoo kale wadanka Sri Lanka ayaa ku jira Sri Lanka wuxuu yiri 88% ayay taarif nagu sameeyaan marka 44% ayaan ka qaadayna marka Trump hadda wuxuu leeyahay wadamadan waanba u naxariistaba mid kastaba marka wuxuu yiri inta naga qaadan ayuu markii hore dhahay hadda waxay u muuqataa kala bar wadan kastaba inta uu ka qaado in ka yar oo u dhiganta in uu hadda uu ku sameeyo marka Trump sidaasi ayuu taarifta ugu dhawaaqay waxyaabaha ka soo kordha waan arki doonaa wadanka Mareykanka qalqal fara badan ayaa ka jira waaniga idin sheegay dadku maalmihii u dambeeyay baabuurta aad ayuu ibsinayay maadaama sicirka baabuurta uu kor u kici doono wadamadii baabuurta u soo dhoofin jiray canshuur ayaa lagu soo rogay xitaa alaabta baabuurta markay halaabaan partiska lagu sameeyo waxyaabahaasi oo odil ninkan Trump meel kasta taarifta waa uu ku kordhiyay wadamada ayaguna way ka jawaabi doonaan ma laga yaabaa in iyaguna ku kordhiyaan marka waxa uu leeyahay Trump haddii iyaguna ay mar kale nagu kordhiyaan anaguna sidoo kale waan ku kordhinayna marka arintaasi ayaa jirta sidaas ayaa Trump taarifta ugu dhawaaqay maalmahanba uu sheegay uu dhahayay labada bisha maalinta xorriyadda ayay noqon doontaa oo wadan kastaba inta uu nagu soo rogo taarif uu naga qaado in la mid ah ayaan ka qaadi doonaa waxyaabaha kale ee soo kordha haddii alla idmo waa idinla soo socodsiin doonaa aad iyo aad u mahadsantiin asxaabta intaan mar kale kulmi doono waa saaxiibkiin cilmi waaro idinla sida iyo nabadgelyo